bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal kuna soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliya oo idinkaga imaanaya studio TV-ga uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Qodobada ugu door karoon warku idin hayo telefishinkana waxaa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee mas'uuliyiin oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay shacabka magaalada Muqdisho kula afuray degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir waxaana ay socod ku soo mareen qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay siyahayaha safiirka dawladda Shiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan 200 oo qoys ah oo ku nool degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. iyadoo lagu guda jiro maalmihii xurriyadda Soomaaliya ayaa munaasabado lagu xusayo 54 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ay xornimada qaateen isla markaana ay la midoobeen kuwa waqooyi waxay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. mas'uuliyiin ka socota wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Finland ayaa waxay la kulmeen wasiirka horumarinta ee dalka Finland waxaana ay ka wada hadleen sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada horumarka. wararka caalamkana waxaa ugu weyn daawadayaal waxaa isku dhac uu ka dhex bilowday dhalinyaro Falastiiniyiin iyo ciidamada Israa'iil kadib markii la helay wiil meydka ah wiil dhalinyaro ah oo Falastiini ah oo habeennimadii xalay ahayd la waayay. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warku idin hayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan u diyaar garooba warkaasi oo dhameystiran.